waad salaamantii saaxiibayaal soo dhawaada kuna soo dhawaada kanaalkan ood uga barateen muuqaalo ku saabsan dhankaas teknolojiyadda insha Allah maanta muuqaalka raba inaan idin la wadaago ku saabsan yahay qaabka sawir loogu qurxiyo Lightroom waxaa jira muuqaal hore aan kaga hadlayay marka qaabka sawir loogu qurxiyo taasoo marka color kan ka duwan markaas aan kaga hadlayay colorka maanta aan idin wadana waxaa la yiraahdaa markaas blue tone tusaalaan sawirkan sidan ayuu markii hore ahaa kadib markaan colorka saarnay qaabkan ayuu isu bedelay marka qaabka aad sawirkaaga sida tan uga dhigan lahayd ayaa maanta baranana ku soo dhawaada muuqaalka faahfaahsan okay saaxiibayaal aan hore galo goran waxaan isdhahay marka hore si colorka markaas preset ah alashan colorka iska diyaarsan markaas si marka iyagu sawiraantooda ugu bedeshaan marka way la yar qurux badnaan weyday oo colorka presetka marka qofka la siiyo waxa laga yaabaa sawirkiisa inuusan ku soo bixin marka muuqaalkan waxaan kugu barayaa marka qaabka loo sameeyo blue tone-kan color kale markaas insha Allah iyagana waan idin la wadaag marka qaabka iyaga loo sameeyo ama preset ahaan balaftigooda aan idinku siiyo marka muuqaalada kale markaas soo socdana insha Allah waxaan kaga hadlayaa marka qaabab color kala duwan oo nooc kale markaas inaan idin la wadaago colorba colorka qurux badan yahay goran maanta marka waxaan idin tusayaa qaabka marka colorka hadda aan idin tusayo bluega aha marka loogu sameeyo sawirkaaga kaliya waxaan sameeynaa qaybtan adjusting inaan tagno kadib waa meesha laga maamulo sawirka calashan colorka iyo waxyaabahaas laga bedelo marka waxaan sameeynaa qaybtan lightka inaan ku horeyno stepka koowaad kadib qaybahan marka aan wax ka bedelno waxaan sameeynaa inaan qaybtan constructiga tagno kadib marka minus aan dhaxno xoogaa wax yar aan minus dhaxno dhowr iyo toban meelahaas aan minus dhahdid si la mid ah highlightkana markaas inaad isaga 90 ama 80 meelahaas ka dhigtid waxaad imaanaysaa marka shadowga isna minus yar ayaad leedahay si la mid ah highlightkana markaas isna waad dhimaysaa oo waliba isaga 80 meelahaas sidii highlightka oo kale ayaad weightingkana minus ka dhigaysaa then blackiskana markaasna wax yar ayaad minus leedahay marka dhamaantood saas ayaad minus u dhahaysaa marka xoogaa hadda sawirka xoogaa wax yar isbedel ayaad u jeedaa oo before-kiisa saas ayuu ahaa kadib saanan ka yar dhignay marka stepka labaad waxaan teginaa marka qaybtan color ay ku qoran tahay then waxaan sameynaa 40 meelood ta ugu sareysa inaad xoogaa plus dhahdid ila meelaha geesid qaybta ku xigtay marka tin ay ku qoran tahay ma isticmaalaysid waxaan isticmaalnaa marka Filmrasic meesha ay ku qoran tahay meeshaas ayaad plus leedahay iyadana si la mid ah saturationka hoosana waxaad sameynaysaa inaad minus yar dhahayd haddaad minus weyn dhahayd waxaad sameynaa inuu black and white sawirka ka dhigo marka waxaan sameynaa inaan minus yar dhahno then saa markaan dhahno waxaan teginaa qaybtan mixiga qaybtan xagga sare kaaga muuqata mixi colorka la yiraahdo ayaan teginaa kadib kalaradana marka ku soo furmaya waxa tigaysaa marka colorka ugu horeeya adoo jooga qaybta huega waxa leedahay minus yar adoo meelaha dhexdhexaad ayaad ka dhigaysaa si la mid ah saturationkana waad furaysaa marka saturation hadaan hadda minus dhahno meelaha qaar ayaa colorka ka tagaya casaanka marka xoogaa plus ayaan leenahay si la mid ah meesha ku xigta colorka labaad ee ku xiga huegiisa waxaad sameynaysaa inaad minus yar dhahdid saturationkana wax yar aad minus dhahdid lumansiga meesha hoose iyadana waxaad sameynaysaa inaad iyadana wax yar minus dhahdid then saa markaad sameysid colorka saddexaad adoo jooga qaybtiisa huega minuska waad u dhamaystiraysaa si la mid ah saturationkana waad u dhamaystiraysaa labada marka saa ugu dhamaystirtid waxaad sameynaysaa qaybta ku xigta cagaarka sidii colorkii hore sameysay huega waad u dhamaystiraysaa minuska si la mid ah saturationkana waad u dhamaystiraysaa minuska tabtaa markaad minus u dhahdid xoogaa hadda colorkii marka hore saanu yar ahaa kadib saanan ka yar dhignay marka wali colorka saxda aan doonaynay ma joogno waxaan sameeynaa qaybtan bluega inagoo joogna qaybta bluega huegiisa sare inaad minus yar dhahdid si la mid ah saturationkana inaad wax yar furtid xoogaa meelaha furtid bluega caadiga rasiinkana waxaad sameynaysaa inaad horey wax yar u wadid isaga oo plus dhahdid si la mid ah saturationkiisana marka wax yar minus dhahdid then colorka geeska xiga waxaad sameynaysaa inaad huegiisa minus dhahdid si la mid ah saturationkana aad horey wax yar u wadid ilaa 60 meelaha gaarsiisid ama 70 lumansiga hoosana inaad isna sidoo kale isla colorka sare ama saturationka saad sameysay kale inaad isku lambar ka dhigtid inta marka saas u sameysid qaybahan saa u wada saxdid waxaad sameynaysaa inaad qaybtan effectiga tagtid kadib qaybahan effectiga meesha text true ay ku qoran tahay ma isticmaalaysid clarity meesha ku qoran tahay aad wax yar minus leedahay xoogaa sawirka ayuu yar nadiif ka dhigayaa si la mid ah kan ku xigana waxaad leedahay plus si sawirku meelo badan uga soo noqdo then kan ku xigana marka minus ayaad leedahay xoogaa madmadow yar ayuu yar gelin si la mid ah kana wax yar ayaad minus dhahaysaa then qaybtan feederka marka waad u dhamaystiraysaa 100ka si la mid ah meeshan ku xigtana iyadana 100ka ayaad u dhamaystiraysaa inta markaad sameysid qaybtan highlightingka waxaad sameynaysaa inaad meelaha adu
konta meelaha geysid dan inta markaad samaysid qaybtan detailska waa stepka afraad qaybta detailska ayaad ku dhufan dan sharpenka xogaa waad hadad u yar baanta waad furaysaa sidoo kale meesha noise reduction ay ku qoran tahay iyadana wax yar ayaad furaysaa xogaa sawirka ayuu markaa wuxuu ka yartirayaa marka shucaaca iyo waxyaabahaas si lamida color noise reduction ka isna qaybta colorka ayuu yar maamula marka isna waad yar furaysaa oo balaas ayaad leedahay kadib inta markaa samaysid hadda sawirkii uu noo yar saxay marka bluegiina ka yar dhigna uun baa noo hadhay color saanu yar ahaa marka hore sawirku kadib saana ka yar dhignay dan waxaan samaynaynaa inaan ku noqono marka qaybta colorka hore inaan ku yar noqono dan qaybta mixiga xaggan ka xigta geeskan qaybtaas ayaad ku dhufan dan colorradan ayaa ku soo furmay marka 40 color ayaa lagaga baayay markaas laba kamid ah inay isticmaashid kan ugu horeeya iyo ka saddexaad marka kan ugu horeeya anoo jooga xagiisa hoose ayaa dimaanaysaa kadib meesha shadow ay ku qoran tahay qaybtan waxa ka xigta marka qayb yar oo falaadaas ayaad ku dhufan dan labadan meelood ayaa ku soo baxaya marka kadib waxa sameynaysaa inaad hiyuga jiidid aad bluega meesha bluega aad geysid waliba afka bluega meelahaas aad geysid si lamida saturation kana marka aad hore u wadid ilaa sawirka aad arkayso inuu yar blueg noqonayo dan waxaan sameynaynaa inaan qaybtan blending ay ku qoran tahay inaan yar furno iyadana xogaa wax yar ayaad furaysaa kadib waxaan tegaynaa marka colorka saddexaad dan isla sidii kii hadda aan sameynay ayaan sameynaynaa bluega afkiisa tegaysaa dan saturation kana waad yar kaxaynaysaa kadib qaybtan lumansigana waxaad sameynaysaa inaad minus yar dhahdid blendingana marka aad horey wax yar u wadid kadib sawirka hadda xogaa blueg ayaa ku yar jira marka wejigaa rabnaa inaan ka yar saarno waxaan sameynaynaa inaan qaybahan colorka iyo waxyaabahan bas kaga yar baxno marka waxaad ku yar noqonaysaa lightka meesha sare lightka ka sareysa meel profile ay ku qoran tahay ujeedaa meesha profileka ayaa tegaysaa kadib meelahan ayaa ku soo baxay marka basic buu joogaa marka automatically artistic meesha ku qoran tahay ayaa tegaysaa kadib colorradan ayaa ku soo baxaya marka waxaad ka dooranaysaa midka 04 ay raacsan tahay mid walba lambar ayaa raacsan ilaa ay ku jooga marka ka 04 ka ayaan dooran dan saan ayuu marka sawirkaaga dhigay kuwan kala dad dooratid sawirka color kale ay ka dhigay marka kaas ayaan dooran kadib imika waxaan helay marka colorkii aan u baahnayn marka dad rabtid wax waa ka sii bedeli kartaa wax waa ku sii dardari kartaa laakiin muhiimaddu waxa weeye inaan bedelnay oo marka hore saanu yar ahaa kadib saanan ka yar dhignay marka colorkan oo preset ah iyo color kale markaas kan ka qurux badanba waan idinla soo wadaagay insha Allah waana qaabka loo sameeyo blue tone-ka calashan sawirka noocan oo kala hadii meelaha aad ku aragtay qaabkan ba loo sameeyaa kulli maanta intaas ayaan jeclahay markaas inaan idinla wadaago insha Allah intaas ku soo noqon waxay ka tagay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh